runtii galabta sharaf bay noo ahayd taliyaalow inaan idinla afurno ujeedka ugu weynna wuxuu ahaa sida la sheegay inaan dhiirigelinno ciidankeenna oo inaan garab taagannahay oo ku faraxsannahay shaqada ay hayaan oo dadka Soomaaliyeed ay u adeegayaan ay ku faraxsan yihiin oo maaragtay shaqo weyn dalkan ay ugu maqan yihiin inaan muujinno idinla afurno idinla joogno ayay ahayd waxaan runtii ka wasaarad ahaan aad ugu faraxsannahay shaqada ay ciidanku hayaan prime ministerkana waa u soo sheegnay markaan halkaan soo aadaynay wasiiru dowlaha amniga kusimahana inuuna soo raacay ahayd saacaddii u dambaysaa maaragtay oo ka cudur daartay oo arrimo ku soo baxeen waxaan sidnaa salaantaas waxaad runtii og tihiin qorraxda iyo dhaxanta iyo kulli waxa loo joogaa waa dalka in loo adeego dalkan wiil yar oo caasi ah oo ilaahay rasuulkiisa ku caasiyey oo dadkiisa ku caasiyey oo dalkiisa ku caasiyey in laga qabto oo dhibaato ku haya waxaa jirta aayad quraan oo dhahaysa in takunuu ta'lamuuna fa innahum ya'lamuuna kama ta'lamuuna wa tarjuuna min allahi maa laa yarjuun haddaad xanuunsanaysaan ayaguna way xanuunsanayaan sidaad u xanuunsanaysaan oo kale waxaad ilaahay ka rajaynaysaan oo jannaana ma ka rajaynayaan nimankaas khawaarijta culimmadeennu sheegtay diinteennuna sheegtay nebiga sal allahu alay wasalam markay soo baxayeen asagoo khaniimo qaybinaya ninkay ka soo farcameen ayuu mid yidhi uu soo istaagay nin waxaa la yidhi gooman waaweyn oo madax xiiran oo gar dheer oo asagoo dhanba bahal u eg bay ka soo farcameen dulkhuwaysiraa la yidhahda nebigu wuxuu ku yidhi maxamedow cadaalad samee war maxamedow cadaalad samee waxaa qaybinaysa cadaalad maahane markaasaa nebigu sal allahu alay wasalam yidhi war hooge haddaana cadaalad sameyn yaa cadaalad samaynaya nin asxaabtii ka mid ah soo istaagoo yidhi ii bannee aan qoorti ka gooye nebi allow ka joog buu yidhi waxaa hadhowta dadku ku sheekaynayaan ma waxaad rabtaa in dadku ku sheekeeyaan ilaa qofkaan wuxuu yahay lama yaqaane asxaabtii nebigaa loo malaynayaae nebi maxamed dadkiisii uu dilayey in la yidhaahdo miyaad rabtiin buu yidhi sala allahu calayh wasalam lama taabanaya hala daayo nebigu waa ku sii daray wuxuu yidhi wuxuu bilow u yahay qoom soo socda qur-aanka akhrinaya idinka cibaado badan idinka qur-aan badan idinka soom badan laakiin halkaas ma dhaafaysa diintoodu haddii aan jooglayna adragtahum haddii aan haleelo oo wakhtigaas ay soo xoogaysanayaan aan joogo la aqtulannahum qatla caadin sidii ilaahay reer caad u diloo kale baan u dili lahaa waxaana guulaystay fatuuba liman qatalahum aw qataluuh waxaana liibaanay qofkii ay dileen oo janno helay iyo kii dilaba labada xaalaba anigu 2011kii baa nabad sugidda markaan joogay baan culimmadii Soomaaliya isku soo yeeray waxaan ku yidhi nimankan waxaa weeye iftaka keena wayna adkaayeen culimo Soomaaliyeed oo ku dhici karta xilligaas hay-adda nabad sugidda meesheeda sheekh nuur baaruud allah u naxariistay baa ka mid ahaa waa bannaayuu yidhi xataa maxkamadda iyo waxaasi madaxaad ka wada goyn kartaa hadda wixii xamar nagu dhex mareen raggaan waa joogeen ninkaa odaga iyo taliyahii waa joogeen 11kii 12kii markaan ka saarayna xamar afgooye iyo marka ciidanka nabad sugidda ugu horreeyey ciidanka lah amisoomtii markay shalaanbood nooga hareen baan galnay ilaa jawhar nimankaas marka waxay wax ku leeyihiin naseexo ma leh waana ma leh nebiga sal allahu alay wasalam baa tamaniyey in la dilo oo hadduu joogi lahaa xilligay soo badaa xilli dambey soo bateen oo isaaruusay xilligii cali bin abi aalib waaye xilligay guruubka noqdeen oo koox meel taagan oo lala diriraya ay noqdeen laakiin markaas halkaas nin iyo dhowr qof ay ahaayeen oo ku fikira nimankaas marka ayaan ishaynaa ma dhammaanayaa nebigu sal alay slam wuxuu ma dhammaadaan waa la dhammaynayaa meel bay ka soo daahirayaan magac gooniyay ku soo daahirayaan meeshaasaa laga dhammaynayaa meel kale ay ka soo daahirayaan ilaa marka u dambeeya masiixu dajaal bay la soo baxayaan ayagoo jaal ah waxaan la dirirayno horta waxaas diintu noo sheegeen weeye ilaahay idankiis waa ka guulaysanayna Soomaaliya horta waa laga tirtiraya mar daacish ha la baxaan mar al-shabaab ha la baxaan mar jabhatu nusra ha la baxaan mar al-qaacida ha la baxaan kun magacay leeyihiin adduunka
laakiin waa kuwaas diintan akhrinaya waxyaalaha la yidhi yaqtuluuna ahla alislaam buu yidhi nabigu sal lla alay slam dadka islaamkaa bay dilayaan wayaddacuuna ahla alawthaan gaaladana waa ka tegayaan taaban maayaan waa aragta markay afduubtaan xoogaa yaroo lacagay ku beddelinayaan askarteenna iyo qof kale markuu u gacan galana waa dilayaan waa tilmaamihii laftoodii la tilmaamay leeyihin nimankaasaa lala dirirayaa shaqo fiican baan haysin runtii waxaan bogaadinaynaa ciidanka in ay adkaystaan sidaas wasiirku sheegay 17kii beder bay rabeen meelo badan inay guula ka sheegtaan laga soo bilaabo xardheere lagu xijiyey daarunicma oo sida la og yahay tuuladii u dhoweyd tuulada maxamed wasiir balcad maantay baktigooda la dhigay diyaaradii inta lala dul tegey ilaa iyo bokool inay 17kan sheegtaan bay ahayd maanta ay guul sheegtaan oo maalinkii beder ay yidhaahdaan dagaalkii oo kalaan qaadnay ciidankii baan jebinay laakiin waa ku gadoontay taliyaashoodii bay uga tegayaan baktigii meelahoodii marka ciidanka xasilinta ee magaalada muqdishona runtii shaqada uu qabtay xalibeen dhaweyta kaaraan baan ku afur dadka waa ducaynayeen meel kastoo la tago duca la hayaa dadkeennaa loo dhafrayaa dadkeennaa loo soo jeedayaa dalkan wiilashiisii difaaci lahaana idinka waay khawaarijtaasna ka dhammayn lahaa waxaan baraarujinaynaa in hawshaas si fiican loo sii wado aan laga daalin aan laga quusan siyaasaadka iyo dadka dacaayadaha wadana aan loo gigsan oo aan maaragtay loo dabcin in loo gigsado dacaayaddan way iska jirtay munaafiqiintu masaajidkii rasuulkay joogeen asxaabtay cabsiinayeen kulaylkan ma ku dagaalami kartaan dhibaatadan maxaa idinku wacan ma iska raaxaysataan bay lahaayeen waa jirtaa markii wax yar ciidankeennu ay gaaraan kuwa buunbuuninaya khawaarijtu markii wax gaaraanna naxaya munaafiqiintaas xilli kasta way joogeen wax la siyaasadayn karana amnigeennu ma ahan waxaan bogaadinaynaa shaqada haysiin waana guulaysta waan idin garab taagannahay xukuumadda dan qaranna runtii waxay ka shaqaynaysaa ciidanka iyo dalkan siduu u baraari lahaa shidaalkiisa u soo saaran lahaa dalkan badda waxa noogu jiro malaya sidii looga faa'iidaysan lahaa qalab ciidan oo xooggan oo tafawuq aan kaga xooggannahay kooxahaas khawaarijta dowladaha deriska iyo la mid noqonnada dalka waa la keenaya haddii ilaahay yidhaahdo guulaystaan idin leennahay waana guulaysanaynaa shaqadana ayaan laga caajisin meeshaan waxaa u joogtiin runtii magaalada bannaankeeda waa inaad dadkaasi nabadgelyo helaan waay allah idin guuleeyo waana mahadsantiin isbitaalka Dawo Clinic waxa uu ka mid yahay isbitaalada dabiiba xanuunada ku dhaca haweenka. Adeegyada isbitaalka uu bixiyo waxa ka mid ah daaweynta dhiciska, daaweynta dhalmo la'aanta, daaweynta infekshanka, daaweynta caado wareerka. Sidoo kale isbitaalku waxa uu qabtaa baaritaanada hormoonada, daaweynta burobiyoodka iyo qaliimadooda, daaweynta kaadi baxsadka, socoshada hooyada uurka leh iyadoo lala talinayo lana daaweynayo. Isbitaalka waxaa ka howlgasha Dictoraysa Qamar Taawane Axmed oo ku takhasustay cudurrada haweenka iyo qaliimadooda. Isbitaalku waxa uu leeyahay kombiyuutarka uurku jirta iyadoo lala soconayo ilmaha caloosha ku jira caafimaadkooda. Hamuugaan Dawo Clinic.